Ciidamada booliska dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad oo xiriir ah waxa ay Dhuusamareeb ka wadaan howlgallo kala duwan oo lagu sugayo amniga magaaladaasi. Howlgalka ayaa wuxuu ahaa mid ku saabsan in la diiwaan geliyo gawaarida magaalada ku sugan, kuwaas oo qaarkood ciidamada booliska ay muraayadaha madow ka fiiqeen. Howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha cusub ee booliska magaalada Dhuusamareeb, Dambe Nuur Cilmi Maxamed, iyada oo laga sameeyay dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda Galmudug Cabdiraxmaan Geede Qorow ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwo amniga lagu sugayo, isla markaana ciidamada ay soo xareeyeen gaadiid mooto bajaaj oo magaalada ka shaqeynaysay. Waxa uu ugu baaqay gudoomiyaha gaadiidka magaalada Dhuusamareeb inay ka qayb qaataan sugidda amniga, waxa uuna ka mamnuucay in gudaha magaalada Dhuusamareeb gaadiidka muraayadaha madow lagu dhex qaato. Howlgalladan ayaa waxa ay kusoo aadayaan xilli 15 bishan uu magaalada Dhuusamareeb ka furmi doono shirka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, wuxuuna noqonayaa wejigii saddexaad ee shirka Dhuusamareeb ka oo lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.